dawada kuna soo dhawaada qaybtii labaad ee barnaamijkeena arrimaha siyaasadda ee garqaad midiba. qodobada wararka qaybtan aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaare Khayr oo maanta dahfuro mashruuc lagu maalgelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed kuna baxaysa lacag dhan 1.6 milyan oo dollar. waxaa warmurtiyeed laga soo saaray shirkii wadajirka ay u dhaxeeyay madaxda Eritrea iyo Ethiopia iyo Soomaaliya kaas oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Asmara ee dalka Eritrea. mareykankana waxaa maanta baroordiiq loogu sameeyaa laacibkii caanka ah ee shilka ku dhintay shalay iyo weliba shil diyaaradeed oo ka dhacay gudaha dalka Afghanistan taasi oo gebi ahaanba dadkii saarnaa diyaaradaasi ay ku dhinteen iyo weliba dagaal la sheegay inuu ka socdo degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. qodobadaasi weliba qodobo kale ayaan dooday qaybta labaad ee barnaamijkeena arrimaha siyaasadda ee garqaad media ku soo qaadan doona. fadlan daawada tahay saaxiibada garqaad media subscribe si halkan ula socoto wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo weliba caalamka. aanu ku bilownahay madaxda dalalka Eritrea iyo Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa magaalada Asmara ku kulmay maanta oo bishii tahay 27 Janaayo 2020. saddexda hogaamiye waxay yeesheen wada hadallo toos ah oo qoto dheer oo ku aadan xaaladda ka taagan dalalkooda, iskaashiga saddex geesoodka ah ee u dhexeeya iyo weliba arrimaha ka soo cusboonaaday gobolka Geeska Afrika. saddexda hogaamiye waxay mar kale ku celiyeen sida ay uga go'an tahay heshiiska saddex geesoodka ah ee saxiixeen bishii Sebtembar ee sanadkii 2018, waxayna dib u eegeen waxyaabihii ka soo baxay dadaalkoodii wadajirka ah ee ku aadan hirgelintooda. saddexda hogaamiye waxay maalmariyeen qorshe howleed wadajir ah oo loogu talagalay sanadka 2020 iyo wixii ka dambeeyay, kaasi oo xoogga lagu saarayo labada ujeedo ee isku dhaafsan ee ah adkeynta nabadgelyada, xasiloonida iyo amniga, iyo sidoo kale sare u qaadida horumarka dhaqaale iyo weliba midda bulsho. waxayna sidoo kale ku heshiiyeen inay dardargeliyaan dalalkooda wadajirka ah si kor loogu qaado iskaashi heer gobol oo wax ku ool ah. dhanka ammaanka, saddexda hogaamiye waxay isla qaabeeyeen qorshe sal ballaaran oo lagu dagaalamayo lagana takhalusayo halista guud ay wajahayaan oo ay ka mid yihiin argixisada, hubka tahriibka ee dadkooda iyo weliba maandooriyaha. dhanka horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada waxay isku waafaqeen in ay mudnaanta siiyaan abaabulidda kheyraadka bini'aadan iyo kam dabiiciga ee faraha badan, iyaga oo dhisaya, casriyeynaya, iskuna xiraya kaabayaasha dhaqaalaha iyo weliba waxyaabaha adeegyada iyo weliba wax soo saarkaba. waxayna sidoo kale muujiyeen sida ay ugu mahadinayaan diyaarinna ugu yihiin la shaqeynta saaxiibadooda iyo weliba danayaashooda, iyagoo lagu saleynayo ixtiraam iyo weliba kala faa'iidaysi siman. saddexda hogaamiye waxay isku raaceen in si dhow ula tashataan walaalahooda iyo weliba madaxda dowladaha kale si loogu xaqiijiyo diilada dadkooda u qaban helista iskaashi dhexmara Geeska Afrika oo wax ku ool ah. saddexda hogaamiye ayaana maanta ku jiray magaalada Asmara ee dalka Eritrea, halkaas oo shir martiyeedkoodii uu hadda laga soo saaray. dhanka wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayr ayaa waxa uu maanta furay mashruuc lagu maalgelinayo 340 dhalinyaro Soomaaliyeed oo soo bandhigay hal-abuur ganacsi oo guuleystay. dowladda Soomaaliya ayaana fulinaysa barnaamijkan, waxaana maalgelinaya hay'adda horumarinta caalamiga ee Mareykanka USAID oo ku bixinaysa lacag dhan 1.6 milyan oo dollar, waxaana ka qayb qaadanaya qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga ee dalka. mashruucan ayaana qayb ka qaadanaya horumarinta dhaqaalaha dalka, kobcinta dhaqaalaha qoyska, abuurida fursado shaqo iyo in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka fogaadaan dambiyada iyo weliba xagjirnimada. dhalinyarada ka faa'iideysanaya barnaamijkan ayaana ka yimid gobolada dalka, waxaana hal abuur ganacsiga loo maalgelinaya ka mid ah beeraha, kalluumeysiga, tabarta iyo weliba midda teknolojiyada caalamiga ah. dowladda Soomaaliya ayaana muhiimadda koowaad siinaysa awood siinta dhalinyarada iyo u abuurida fursado shaqo oo ku daboolaan baahiyadooda, qayb weynna ka qaata horumarka guud ee dalka iyo weliba dadka Soomaaliyeed. xafladan oo sidoo kale qayb ka ahayd wasaaradda dhalinyarada, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo weliba wasiirka wasaaradda awqaafta iyo diinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho, iyadoona ugu dambeyntii laga soo saaray barnaamij ku aadan maalgelinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee hal abuurka ganacsiga leh. waxayna arrintani ka dhigan tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijkan 1.6 milyan oo dollar system lagu qaybin doono ka dhammaanba kasoo qaybgalayaasha ku guuleystay in ay helaan maalgelintan ay sameysay shirkadda USAID. dhanka kalena diyaaradda rakaab ah
ayaa ku burburtay gobolka Ghazni ee dalka Afghanistan sida ay sheegayaan saraakiisha dalkaasi. waxayna saraakiisha sheegeen in diyaaradda uu dab qabsaday markii uu ka soo kacday deegaanka Sagunul Khayr. ilaa iyo hadda lama helin warar dheeraad oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay shilka diyaaradda, maadaama deegaankaasi ay maamulayaan sida la sheegay ururka Taliban. shirkadda diyaaradaha ay leedahay dowladda Afghanistan ee loo yaqaan Ariana ayaa beenisay wararka sheegaya in ay lahayd diyaaradda burburtay. diyaaraddan ayaana burburtay saacado yar kadib markii ay hawada gashay. waxa ayna ku soo aadaysaa xilliga ay burburtay xilli la sheegay in hawada dalkaas Afghanistan uusan wax badan aysan ka khaldaneen. waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in diyaaraddan gabi ahaanba dadkii saarnaa oo ilaa hadda aan la helin tirada rasmiga ay gabi ahaantoodba ku burburtay. diyaaraddan oo laga leeyahay sida la sheegay dalkaasi India oo uuna leeyahay inuu dhashay dalkaas ayaa la sheegayaa in ay ku burburtay hawada dalkaasi Afghanistan. xilliga burburta ayaana saacadda ahayd 1:10 duhurnimo ee xilliga wadanka Afghanistan ay ahayd 8:40 daqiiqad. ilaa iyo haddana wax warar oo dheeraad ah arrintaasi laga meelin, walow meelaha ay ku burburtay ay tahay dhul ay maamulayaan ururka Taliban ee dagaalka kula jira dowladda Afghanistan iyo weliba ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha dalkaasi Afghanistan. warar dheeraad ilaa hadda laga meelin oo ku aadan diyaaraddaas, inkastoo ururka Taliban iyagana ilaa hadda aysan ka hadlin arrinta ku aadan burburka diyaaraddan oo burburtay saacado yar kadib markii ay hawada gashay. warar qaar ayaana sheegaya in diyaaraddani ay dab qabsadeen, halka warka qaar ay sheegayaan in diyaaraddani ay qaab farsamo u soo dhacday. militariga Mareykanka ee ku sugan gudaha dalkaas Afghanistan nin u hadlay ayaa waxa uu sheegay in diyaaraddani ilaa ay burburtay balse uusan cadeynin sababta ay u burburtay iyo weliba waxyaabaha keenay in diyaaraddan ay ku dhacdo meeshaas. walow ilaa hadda aan la ogeyn waxyaabihii kama dambaysta ay ku aadan arrintaas, haddana nin u hadlay dowladda Afghanistan ayaa waxa uu sheegay in diyaaraddani oo burburtay maanta ay u burburtay dab qabsaday oo keliya, balse aysan dhicin in wax gantaal ah ama ujeeddo rasmi ah ay ka dambeysay in ay soo dhacdo. gobolka ay ku burburtayna waxaa haysta sida la sheegay ururka Taliban. waxaana sidoo kale la sheegayaa in diyaaraddani ay ku burburtay meel aan saasi uga fogeyn magaalo ay inta badan maamusho ururka Taliban. sidoo kalena diyaarad laga lahaa dalka Korea ayaa waxaa horaantii isbuucii la soo dhaafay soo riday gantaal ku dhacay kaas oo ay lahayd dowladda dalka Iran. maalmihii ugu dambeysay muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo badanaya burburka diyaaradaha oo qaarkood ay sababayaan hawada, halka qaarkoodna cilad farsamo ay dhacdo, halka qaarkoodna loo soo ridayo qaab farsamo ah. arrintan ayaana waxaa sidoo kale ay saameyn xoogan ku yeelan doontaa socodka duulimaadida caalamiga ah ee u kala gooshaya wadamada bariga dhexe iyo weliba qaaradaha Yurub iyo weliba guud ahaanba adduunka. ciyaaryahanka kubadda kolayga ee u dhashay dalka Mareykanka Kobe Bryant ayaa ku dhintay shil diyaaradeed, waxaana geeridiisa ka tacsiideeyay taageerayaashiisa oo ku kala sugan dunida. Bryant oo 41 jir iyo weliba gabadhiisa oo 13 jir ah ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay shilka diyaaradda. diyaaraddan ayaana ku dhacday degmada Columbus Axaddii kadib markii hawada ay ceryaamo ku jirtay, waxaana ku dhintay 9 qof oo ahaa guud ahaanba dadkii saarnaa. ma jirin cid ka badbaaday shilkaas. Bryant wuxuu u dheeli jiray kooxda Lakers ee dalka Mareykanka, waxaana lagu tiriyay inuu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan kubadda kolayga ee guud ahaanba caalamka. ciyaaryahanada ka tirsan kubadda kolayga ee guud ahaan Mareykanka ayaa aamusay daqiiqado si ay u xusaan saaxiibkooda. meelo badan oo ka tirsan Mareykanka waxaa ka socda munaasabo loogu baroor diiqayo ciyaaryahankani geeriyooday. xaaskiisa ayaana sidoo kale ka mid ah dadka ka hadashay geeridiisa, iyadoo waxaa la arkay TV-ga kasoo muuqatay sheegtayna inaysan ku qiyaasi karin waxaa soo gaaray qoyskoodii weliba dhimashada ka dhalatay. arrintan ayaa sidoo kale waxaa ka tacsiyeeyay aqalka cad ee Mareykanka, iyagoo sheegay inay dhammaanba tacsi u darayaan qoyskii, saaxiibadii iyo weliba guud ahaanba dalka Mareykanka tacsidii ku timid geeridii naxdinta badeed ee ku timid sida ay sheegeen Kobe Bryant.
Van Buren ayaana ahaa ninka si aad ugu wanaagsan kubadda koleyga ee aadka looga ciyaaro gudaha dalkaasi Mareykanka. Waxa uuna u ciyaari jiray kooxda Lakers oo ah kooxaha sida aadka u weyn looga xiiseeyo gudaha dalka Mareykanka, inta badan ku guuleysta marka ay timaado kooxaha kala horeynta ee gudaha dalkaasi Mareykanka ee kubadda koleyga. Kooxdan ayaana waxa uu u ciyaari jiray ama u ciyaarayay muddo badan sida la sheegay. Waxa uuna gaarsiiyay guulo fara badan isagoona kamid ahaa laacibiinta ugu wanaagsan ee kubadda koleyga ee dunida. Tani intaas ayaana kusoo gabagabeynaa barnaamijkeena qaybta 20 iyo Britain nabadgelyo.